أحمد محمد إسلام مدحوينها جبلان ayaa toddobaadkii hore qabtay shirkiisii jaraa'id ugu horeeyay tan iyo markii dib loo doortay ayaa waxa uu jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanayso taas oo uu kaga hadlay doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo iyo xayiraadda duulimaadyada lagu soo rogay deegaanada Jubbaland ayaa waxa khudbadiisa ku jirtay in magaalada Kismaayo aysan ku wada sugnaan karin siyaasiyiinta la magac baxay garabka isbedel doonka Jubbaland oo dhankooda dhawaan iyaguna sheegtay in loo doortay madaxweynaha Jubbaland ayaa waxa durbaba khudbadii madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ay siyaasiyiinta kale ee garabka isbedel doonka Jubbaland ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ku aadan haddii weerar lagu qaado sidii ay isaga difaaci lahaayeen ayaa siyaasiyiinta kale ah Cabdi Naasir Seraar Maax iyo Cabdirashiid Maxamed Xidig oo labadooduba dhawaan sheegtay in ay yihiin madaxweynaha Jubbaland kulan ay Kismaayo ku yeesheen ku heshiiyay in si wadajir ah isaga difaacaan weerar kasta oo kaga yimaada dhinaca maamulka Axmed Madoobe kulanka oo ka dhacay hoyga uu Kismaayo ka degan yahay Cabdi Naasir Seraar Maax ayaa waxa ay kulankooda diiradda ku saareen sidii ay isaga difaaci lahaayeen weerar kasta oo kaga yimaada dhinaca maamulka Axmed Madoobe siyaasadahan qalifsan ee ka jira Kismaayo ayaa si aad looga hadalaya goobaha lagu qaxweeyo waxaana dhinaca kale jira cabsi weyn oo ku aadan in magaalada Kismaayo dagaal uu ka qarxo horay ayaa waxa u socotay waawaan ku aadan sidii xiisada jirta xal waare looga gaari lahaa in waawaantaasi ay ka biyo diideen xubnaha kale ee la magac baxay garabka isbedel doonka Jubbaland